بسم الله الرحمن الرحيم وحالك كسلام يا ددوينا قلمدق يوم الصوماليات ما جاي عندي يقرنين وحسن محمد سعيد سمطر قعالية لو يقانو حسن قعالية وحنا هاي مرشح وتاجر هلك مدحوينك وحجينك دولة قوليتك قلمدق ورصحفديت كانوا ما أنتم حلو سوجيدين إياه مركان أرجني دباتوين بدن كتاجن لوسم الريب عاصمة دولة قوليتك قلمدق قارهان وحي كدعي doorashada waxaan aad iyo aad uga soo horjeednaa qaabka dawladda Soomaaliya u maamushay doorashada guddoonka baarlamaanka waxaana walwal ka qabnaa doorashada madaxweynaha soo socdo iyo madaxweyne ku-xigeenka waxaanu filaynay doorasho loo dhan yahay loo siman yahay isku fursad la weeyahay laakiin waxaa caddaatay inay istaas jirin oo dawladda Soomaaliya afduud bareera oo riixid iyo gooni u wad inay meesha ka socdaan annaga afduub yeeli mayno sidaas daraadeeda waxaan ka soo horjeednaa doorashada madaxweynaha iyo ku-xigeenka in la boobsiiyo waxaan u maleynayaa dad badan aragtidaas inay ila qabaan marka waxaan soo jeedinaynaa dowladda Soomaaliya baa u diraynaa in arintani dib u hakiso inta biyaha ka degayaan waxaan ogsoonahay waxaan ku aragnay doorashada baarlamaanka in xor loo ahayn waxaan aragnay xildhibaanadii inay u afduubnaayeen waxaan u aragnay qoorku qabad inay codkooda ku baxsheen waxaasina waxaan u maleynaynaa doorashada madaxweynaha iyo ku-xigeenkana saas inay u dhacayso sidaas daraadeeda reer galmudug iyo Soomaaliya oo dhan waxaan u sheegaynaa meeshani in dowladda Soomaaliya ka waatoodo waxay ku socoto sidoo kale jabhadda ama ururka dowladda noqday ahlusunna wal jamaa oo maanta 20 xubnood ku leh baarlamaanka galmudug waxa weeye waa laga maarmaan waa urur loo baahan yahay magaaladani xasiloonideedii iyo magaalo jooggeedii ahlusunna la'aanteeda wax dhici karo ma ah dowladda Soomaaliyana waxay ka shaqeynaysaa sidii meesha gabi ahaanba uga saari lahayd ahlusunna oo ka riixi lahayd dalkan waa la wada leeyahay galmudug waa la wada leeyahay koox gaar ah ma leh kooxaysiga hana laga daayo annaga aad iyo aad baan u cambaareynaynaa ahlusunnana waan garab taaganahay meeshan la'aantooda nabadna lama helaayo horumarna la heli maayo anigana maadaama ururkooda ka mid mihi laakiin waxaa ka mid ahay dadka aad u taageersan sidaas daraadeeda waxaan baaq mar labaad u dirayaa dowladda Soomaaliya inay ka waantoodo qaabkay u maamulayso doorashada tan waxaan codsanaynaa sidaas daraadeeda in dib loo dhigo isbuuc 10 maalmood 2 isbuuc waxay noqotaba arinta ku degayso sidoo kale yaa la hilmaamin in galmudug maanta qaybsan yihiin oo doorasho kale iyo madaxweyne kale iyo baarlamaan kale laga diyaarinayo gaalkaayo waxaan rabnaa annaga galmudug oo midaysan waxaan u tartamaynaa waa intaasi maanta laba maamul oo mid kale naga daba furmo gaalkaayo waxaan u dul qaadanaynaa iyadana ma aha waa in dadka dhan la isku keenaa wada lahaanshadina la soo celiyaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu